tani waxay dhacday sanadkii hore wax yar ka hor ciida Kirismaska. Aniga iyo xaaskayga Julia waxaan u baahnayn inaan si degdeg ah u tagno suuqa si aan u soo iibino qurxinta iyo wixii cunto ah ee loo baahnaa, waxaana nala socday wiilkayaga Dani. Suuqu aad buu u buursamay, dadkuna way isku dhex yaaceen. Dani waxaan ku idhi, iga dhawow, ha iga fogaan. Laakiin marka uu rabitaanka ku mashquulo, arrintu sidaas si ka duwan ayay ku dhacdaa. Waxaan mar kaliya hoos u eegay, wiilkii ma jirin. Waxaan ka wareegnay dukaanka ilaa dukaan kale annagoo magaciisa ku qaylinayna. Cabsidan ayaa iga buuxday. Juliana way oyday markii aan u tagnay ammaanka suuqa si ay nooga caawiyaan raadinta Dani. Waxaan maqalnay dhawaaq ka baxaya codbaahiyaha xafiiskooda. Dhammaan dadka suuqa jooga, nin ka tirsan ciidanka ammaanka ayaa lagu arkay isagoo ku dhintay musqusha ragga. Fadlan deganaansho ilaashada oo ha ka bixin gudaha suuqa. Dabadeed nin ammaanka ka tirsan ayaa noo keenay muuqaal kamero muujinaya nin kale oo Dani gacanta haysta iyadoo la marayo wadooyinka gadaasha suuqa. Waxaan ugu qayliyey ninka ammaanka ahaa, waa wiilkayga. Wac booliiska. Ninkii ammaanka ahaa wuu naxay. Wuxuu yidhi, ninka muuqaalka ku jira ma aha shaqaalaheena. Isagoo xiran dhar ammaanka u eg, laakiin dharkaasi waxaa lahaa ninkii meydkiisa laga helay musqusha. Julia dhulka ayay ku dhacday, ooyeysana way ka goday. Aniga maskaxdaydu waxay ka buuxday sawirka wiilkayga yar oo gacanta u galay qof aan garanayn. Ninkii ammaanka wuxuu yidhi, saraakiishu waxay imanayaan daqiiqada yar gudahood. Laakiin anigu ma aanan sugi karin. Waxaan orday, waxaan xoog ku furay albaabka lagu leeyahay shaqaalaha oo keliya, waxaana galay waddo dhuuban oo ka dambaysa dukaamada. Iftiinka saqafku wuu liitay, qaar baa dabnaa, hoos uun baan ku socday anigoo qaylo ka raadinaya. Waxaan maqalay Dani oo ku qaylinaya hoos, aabe. Codkiisa ayaan raacay ilaa aan ka galay qol weyn oo kayd ah. Ninkii wuxuu ku haystay Dani gacanta isaga oo midna haysta mindi. Wiilkaygii yar wuu dharbaaxayay oo wejigiisu qalafsanaa. Ninkii wuxuu igu yidhi, iga sii duro, iska daa soo dhawaanshaha. Codkiisu wuxuu ahaa mid gariiraya laakiin halis ah. Isagu waa dariiqa keliya ee aan uga bixi karo suuqa anigoo aan booliiska ku dhicin. Dani wuu ooyay, gacantiisana yar ayuu ii fidiyey. Hal qalad oo aan sameeyo wuxuu ka dhigi karay dhimashada wiilkayga. Waan neefsan waayey, laakiin waan fikiray. Waxaan kor u taagay gacmahayga anigoo cod degan ku leh, halkan fiiri. Waxaad rabtaa inaad baxdo, sax miyaa? Waan ku caawin doonaa. Keliya wiilka sii daa oo aniga ii keen. Waan ku ballan qaadayaa inaan la shaqeeyo. Ninkii wuu eegay Dani dabadeedna wuu igu soo jeestay. Ma isku dayaysaa inaad ikhiyaamayso? Ayuu yidhi, maya, isaga sii daa. Aniga iga dhig sidii aad rabto. Ugu dambayntii wuxuu sii daayay Dani. Wiilkaygu wuxuu orday wuxuuna iga galay gacmaha, anigoo u sheegay inuusan dib u soo jeedin balse uu ordo hooyadii. Laakiin intaan ka war helin ayuu ninkii qoorta iga qabtay oo mindidii qoorta ii saaray. Markaas booliisku waxay ka soo galeen albaabka. Waxaan ku qayliyey saraakiisha, fadlan marka hore carruurta meesha ka saar. Waxaan ahay qof weyn, waan adkaysan karaa. Ugu dambayntii waxaan ugu soo laabanay suuqa. Qof kasta wuxuu nagu fiirinayay cabsi iyo naxdin. Julia markaan u muuqday ayay qaylisay. Dani oo ku dhegan gacanteeda, ninkii wuxuu iga codsaday inaan u socdo albaabka bixitaanka idaabdhan. Hal qalad oo aan sameeyo ayuu yidhi, wuu iga goyn doonaa madaxa. Markii aan gaarnay agagaarka kor u qaadista elevatorka, indhahaygu waxay qabteen xidig bir ah oo Kirismas ah oo saqafka ku xirnay. Fikraddii ugu dambaysay ayaa igu soo dhacday markuu ninkii ku dhahay galka ku. Waynu wada soconnaa. Waxaan iska dhigay sidii aan u hoggaansamayo. Laakiin intii albaabku u xirmayay ayaan kor u taagay xidigtii oo ku dhuftay indhihiisa midig. Wuu qayliyey, mindidii way ka dhacday gacantiisa. Booliiskuna way ku soo boodeen oo dhulka ku jiideen. Dhammaan waxay ku dhammaatay daqiiqada gudahood. Markii aan dib ugu noqday Julia iyo Dani, wiilkaygu wuxuu igu yidhi isagoo ilmeynaya, aabe, waan ka xumahay, kama tegi lahaa. Waxaan ku idhi, wax walba waa hagaag. Adigaa hadda ammaan ah. Maalintaas waxay i bartay in mararka qaar carruurta runta loo sheego ay ka fiican tahay in laga dhigo haliyey aan baqin. Waalidku waa dad, way cabsi dareemi karaan, go'aankooduna mararka qaar wuu khaldami karaa, laakiin jacaylkooda carruurta kama dhammaado. Sanadkii hore ciida Kirismaska, wax aan weli ka fikiro ayay ii dhacday. Waxaan ku jiray jaamacad oo waxaan go'aansaday inaan si degdeg ah u booqdo ehelkayga. Qabowga wadooyinka iyo barafka daayay ayaa ahaa go'aankii ugu nacasnimada badnaa ee aan qaato noloshayda. Waxaan waday baabuurkayga muddo ku dhow nus saac, dabadeed wuxuu istaagay meel lagu magacaabo waddada 9aad. Barafku wuu cuslaaday, qabowna wuxuu noqday mid aan la adkaysan karin. Waxaan ku haray meel cidla ah, telefoonka isoo dhimanaya, isla markaana aan lahayn cid igaalmaysa. Waxay suuragal ahayd inaan halkaas ku ahaa 20 daqiiqo anigoo daawanaya barafka oo sii daboolaya waddada hortayda. Markaas ayaan arkay iftiin baabuur oo soo durduraya. Baabuur duug ah oo madhan ayaa istaagay iga dambeeya. Wuu gaboobay, laakiin qurxinta Kirismaska ee lagu dhajiyey waxay u muuqdeen sidii qof waalan uu si kadis ah uga soo iibsaday dukaan qaaliga ah. Xitaa grillka waxaa ka laalaaday maro lagu qurxiyo guriga. Darawalka wuxuu daaqada ka soo muuqday anigoo si dib leh u arkaya. Wuxuu xiran lahaa dharka Grinch, mid madow iyo cagaar isku dhex jira. Ma u baahan tahay in lagu qaado, wiilay? Ayuu igu yidhi. Haa, waad ku mahadsan tahay, ayaan ku idhi. Waxaan soo qaaday taleefankayga iyo boorsadayda yar, dabadeedna waxaan fuulay kursiga rakaabka. Baabuurku wuxuu lahaa ur bir qadiimi ah oo ku dhex jirta caraf macaan oo la isku qariyey. Meelaha ayaa lagu dhejiyey warqado yaryar oo farxad u eg. Waad ku mahadsan tahay inaad joojisay, ayaan ku idhi. Arrin ma aha, ayuu yidhi isaga oo indhaha ku haynaya waddada muddo yar oo aamus ah. Dabadeed wuxuu iga codsaday, maxaad u malaynaysaa inaan necbahay Kirismaska? Maxaad u necbahay? Ayaan weydiiyey. Waa farxaddii la iska sameeyey. Qoysas iska dhiga inay isjecel yihiin. Carruurta oo ku qaylinaya qalab ay toddobaad gudahood jebin doonaan, ayuu yidhi isagoo qosol qadhaadh leh. Waxaan dhihi lahaa wax kaftan ah, laakiin qalbigayga waxaa galay cabsi. Waxaan ku idhi, waxaad xiran tahay sida Grinch. Waan jeclahay inaan noqdo Grinch, ayuu qosol u dhoweeyey. Markaan eegay waddadii ayuu ka weecday jidkii magaalada. Waxay ahayd meel cidlo ah. Waxaan weydiiyey, xaggee baynu u soconaa? Guri, ayuu deganaan ku yidhi. Adi waxaad tahay martidayda Kirismaska. Gacantiisa gacan gashi ku jirta
ayuu ku dharbaaxay dariishada. Grinch ma doonto inuu keligiis ciido. Qalbiga ayaa i degay. Waxaan isku dayay inaan dagaal maskaxeed sameeyo. Runtii ehelkay ayaa i sugaya. Waxaan u sheegay inaan dhaqso ku imaanayo. Waxba ha samayn ayuu iiga dhex jaray. Xagee bay ahaayeen markay ku daayeen adiga oo barafka dhex taagan? Erayada uu ku yiri waxay lahaayeen run iyo cabsi isku dhafan. Wuu sii waday, codkiisana kor ayuu u qaaday. Wadooyinku waa khatar. Aniga ayaa hadda ka ilaalinaya. Waxaan kuu diyaariyey casho Christmas. Wax gaar ah. Kadib waxaan arkay gacantiisa oo u dhaqaaqaysa sanduuqa yar ee uu ku kaydsan yahay. Wuxuu furay qaybta hoose ee gacanta lagu geliyo. Waxaa ku jiray mindi weyn oo dhalaalaysa. Tani waa mindida goynta hilibka Christmaska, ayuu yiri isagoo si caadi ah u hadlaya. Waxaan qorsheeyay cashadan toddobaadyo. Wadnahaygu uu garaacay. Baabuurku wuxuu u jihaystay meel buuro iyo kaymo leh oo dhinaca bidix ka baxsan wadada. Ma jirin guryo, ma jirin iftiin kale marka laga reebo kuwii baabuurka, kuwaas oo igu noqday cabsi aan cirib lahayn. Ma weligaa hilib goysay wiilkay? Ayuu weydiiyey isagoo mindidii salaaxaya. Waa farshaxan. Waa inaad ogaataa xaggee laga bilaabo. Ma aanan ka fikirin. Waxaan albaabka si degdeg ah u furay. Waxaanan isku tuuray banaanka. Xanuun baa iga soo maray garabka, laakiin waan istaagay oo orday. Barafku wuxuu iga dhigayay mid si adag ku soconaya. Waxaan maqlayay mishiinka baabuurka oo gadaashayda ku soo cabaadaysanaya. Wuu u jeestay dushiisa keynta. Qurxinta Christmasku waxay ku ifaysay sida waali. Waxaan dhinac u leexday si degdeg ah. Baabuurkiina wuxuu ku dhacay geed. Ma aanan joojin, waan socday ilaa neeftu iga goday. Markii dambe waxaan maqlay codka siran weyn. Iftiin casaan iyo buluug ah ayaa u soo baxay keynta dhexdeeda. Baabuur ammaan ah ayaa istaagay agtayda. Laba sarkaal ayaa i soo booday. Ma fiican tahay wiilkay? Ayuu mid ka mid ah weydiiyey. Waxaa i raacay nin xiran dharka Grinch oo mindi wato. Ayaan ku idhi anigoo gariiraya. Boolisku waxay heleen baabuurkaygii oo barafka ku qarsoon halka ii jabay. Waxayna heleen raadadka kabaha oo keynta u sii jira. Laakiin darawalkii waa uu tegey. Ma helin mindidii, ma helin dharkii Grinch, ma helin wax caddayn ah oo badan marka laga reebo raadadka iyo cabsi iga buursamay. Tan iyo maalintaas mar dambe ma wado habeen Christmas ah. Xitaa ma fiiriyo iftiin qurxin baabuur lagu dhajiyey. Marka aan qof arko xiran dharka Grinch, xitaa haddii uu suuqa dul joogo caruur faraxsan, waan ka garab wareegaa. Maxaa yeelay waan ogahay inuu weli meel joogo, wadaya baabuur duug ah oo qurxintiisu indhaha ku beerta, raadinaya cid u raacda. Cid aan guriga u gaarin habeen Christmas ah. Waxaan ku soo koray guryo daryeel ah oo badankood aan ka soo wareegayay. Sidaas darteed markii aan helay shahaadada kalkaalisada aniga oo jirka 22 ka shaqaynta xarunta daryeelka Meadowbrook Senior Living, waxay ii ahayd meel aan dareemay in ay iga tahay sax. Waxaan garanayay waxa ay la mid tahay inaad dareento cidlo iyo in aanad haysan cid ku xasuusata. Sidaa darteed waxaan rabay inaan meel joogo oo dadkaas kale uga ahaado qof jirta. Inta badan waayeelka meesha ku nool waa dad wanaagsan. Qaar mararka qaarkood way wareeraan ama wax bay khaldaan, laakiin weligood kama maqlin wax u eg Bob. Bob wuxuu jiray 68 sano. Ma jeclayn inuu la hadlo dadka kale. Inta badan qolkiisa ayuu ku ekaan jiray. Waxaana lagu yaqaanay il aad u madow iyo hadal yar. Laakiin maalin kasta waxaa imaan jiray wiilkiisa isagoo wata ubaxyo cusub. Wiilku wuxuu ahaa nin dheer oo muuqaal wanaagsan, wuxuuna lahaa dhoola caddayn aan dhalan u ekaan. Wuu ogaa magaca kalkaaliso